laga soo bilaabo 1991 waa qarnigii tegay Soomaaliya waxa ay gashay xaalad aad u mugdiya waxa soo maray dagaalo sokeeye abaaro aad u ba'an isla markaana dadka Soomaaliyeed waxa ay bilaabeen in ay ka qaxaan wadankooda hooyo runtii abaaraha soo maray wadanka Soomaaliya ayaa waxa uu yahay abaarihii ugu xumaa oo caalamku ay arkaan waxaa jirta gargaar degdeg ah oo la soo gaaray isla markaana waxaa jira gurmad degdeg ah oo uga imanayay dawladaha caalamka labaatankii sano ee u dhameeyay ayaa Soomaaliya waxa ay ku jirtay xaalad dagaal balse dadkii Soomaaliyeed ayaa waxa ay u qaxeen wadamada jaarka ah iyagoo isla markaa raadinaya nolol dhaanta nolosha ka jirta wadankoodii hooyo waxa kamid ah wadamada ay u qaxeen Itoobiya, Kenya iyo Yemen wadanka Kenya ayaa waxa ku nool Soomaali aad u tiro badan balse Soomaalida joogta wadanka Kenya ayaa waxa ay badankoodu ku rajo weyn yihiin sidii ay mar u tagi lahaayeen wadamada reer galbeedka daawadayaal waxaa jirta Soomaali kale oo ganacsi aad u ballaaran ka sameysay wadanka Kenya sidoo kale waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay waqtigii ay joogeen wadanka Kenya iyagoo isla markaa bilaabay waxbarasho ilaa heer jaamacadeeda balse dadka u badan ayaa waxa ay ku hanweyn yihiin sidii mar ay u gali lahaayeen wadamada Yurub ama Mareykanka daawadayaal dhalinyarada tahriibta ayaa badankood waxa ay socodkooda ka soo bilaabaan wadanka Kenya bal haddaan eegno dhinaca saxaraha waa wado aad u halisa isla markaana waxa lagu jirayaa muddo dhan bil ama ka badan taasoo mararka qaar ay sababto in ay naftooda ku waayaan dadka tahriibaya iyadoo sabab u tahay biyo la'aan haleesha ama gaariga ay la socdaan oo meel cidla ah kaga jaba daawadayaal dadka tahriiblayaasha ah ayaa waxa ay sii qaataan sahaydan muddo bil ah balse mararka qaar iyaga oo waqtigii la rabay gaarin ayaa sahaydu waxa ay kaga go'daa muddo aad u yar maalintii qoraxda ayaa waxa lagu keenayaa meel dhow iyadoo dadku ay aad iyo aad u haraadayaan isla markaana jecel daqiiqad kasta inay afka biyo ku hayaan habeenkiina waxaad arkaysaa
dadka oo aad iyo aad u dhaxamoonaya iyagoo mararka qaar intay ciidda qodaan ka raadinaya kulayl. runtii saxaraha markaad eegto waad la yaabaysaa, waxaad weynaysaa wax noola ah, hadday tahay xayawaan iyo hadday dhir tahayba. haddaba dadku marka ay nasiib u yeeshaan in ay ka gudbaan saxaraha waxa ay galaan waddanka Liibiya. dadka ayaa waxaa lagu rusheeyaa sida ay u jeedaan biyo, iyagoo laga yaabo muddo 2 maalin ah ama ka badanba in ay biyo fiican helin. daawadayaal, waxaa jira dad iyagoo naftooda halis ku jirto in ay soo gaaraan xuduudda Liibiya, balse dadku marka ay Liibiya yimaadaan maxay kala kulmaan? waddanka Liibiya ayaa aad u adag inaad ka sii gudubto, maadaama ay dadka tahriibaya ay kala kulmaan xaalado kala duwan. dadka badankood ayaa waxa ay galaan xabsiyo, sidoo kale waxa ay gacanta u galaan dad mukhallasiina. mukhallasiinta waddanka Liibiya ayaa waxa ay yihiin kuwo arxanlayaala, iyaga oo isla markaa dadka saara doonyo muddo aad u badan shaqaynayay ama laashash aad u yar. haddaba badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga ayaa ah bad aad u halisa. dadka tahriibaya ayaa mar labaad naftooda waxa ay ku halligaan badda, balse dad yar ayaa ka badbaada baddaas. badaha Yurub marka ay soo galaan waxa ay helaan gurmad degdeg ah. haddaba su'aashu waxa ay tahay, marka ay soo gaaraan waddamada Yurub maxay kala kulmaan dadkan soo maray dhibaatada aadka u baahan? daawadayaal, barnaamijkayga waxaan ku eegi doonaa dhowr waddan oo Yurub ah. waddamada Yurub ayaa waxaa ku nool qaxooti Soomaaliyeed oo aad u tiro badan. waxaan ku daahfuri doonaa waddanka Holland. waddanka Holland waxaa ku nool dad gaaraya 17 milyan. waddanka Holland waxa uu ku jiraa 5 waddan ee Soomaalidu u jeceshahay, iyadoo isla markaas si maalinle ah ay iskaga dhiibaan xerada weyn ee qaxootiga ah ee loo yaqaano Traabul oo ku taala waddanka Holland. daawadayaal, waxaan u kurgeli doonaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Holland, annagoo waraysiyo la yeelan doonaa dadka qaxootiyada ah, dadka deegaanka ku ah, isla markaa iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha waddanka Holland. balse barnaamijkayga waxaan ku bilaabi doonaa dadka qaxootiyada ah oo aadka ugu dhibaataysan waddankan Holland. dadka qaxootiga ee ku nool waddanka Holland ayaa maalinba maalinta ka dambaysa aad u soo badanaya. haddaba waddanka Holland ayaa waxa uu ka duwan yahay waddamada kale ee Yurub, maadaama dadka qaxootiyeed marka ay helaan jawaabta negatiifka ama diidmada isla markaana bannaanka la sii dhigo, dadka ayaa waxay ku nool yihiin sida aad aragtaan bannaanada. waxa ay ku nool yihiin teendhooyin yaryar. waxaa caawiya ururo ka dhisan waddanka Holland, ururadaasoo hoos taga hay'adaha samafalka.
daawadayaal waxa aan tagnay kaniisad ay ku nool yihiin dad qaxootiga. dadka qaxootiga ayaa waxay iskugu jireen ajaanib iyo Soomaali. dadka ayaa tiradooda waxa lagu qiyaasaa 400 ilaa 500 inta u dhaxaysa. daawadayaal waxa ku nool Soomaali gaarisa ilaa 80 qof oo iskugu jira hooyooyin, caruur iyo waliba dhalinyaro. iyagoo ku noolaa xaalad aad u adag. sida aad ka warqabtaan cimilada wadamada Yurub waqtiyada qaar marmar ayuu waxa uu tagaa -20 ama -20. odayaal halkan ay u jeedaan kaniisada weyn ee ku nool yihiin dadka banaanka muddada 3 bilood ah jiifay. dadkan ayaa waxay iskugu jiraan hooyooyin, dhalinyaro iyo caruur intaba. dadkan ayaa waxa ay leeyihiin noloshii caadiga ahayd ee ku nool yihiin dadkan ku nool wadanka kale. daawadayaal waxaan rabnaa inaan gudaha u sii galno anagoo rabnaa inaan isla yeelano isla markaana aan soo bandhigno nolosha ay ku nool yihiin, adeegyada ay helaan, hadday caafimaad tahay, hadday tahay daruuriga ah. hadda waxaan u gudbi doonaa qaybta gudaha. daawadayaal halkan ay u jeedaan waa qolalka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga Soomaaliyeed oo degan kaniisadan. kaniisadan ayaa waxa ay ku taalaa bartamaha wadanka. dadkan waxa caawiya dad iskugu jira ururo iyagoo isla markaa ka helaya gargaarka hay'adaha samafalka. waxay u badan yihiin dhalinyaro. waxaan rabnaa inaan galno qolqol anagoo isla markaa rabnaa inaan ogaano xaaladda ay ku nool yihiin. halkani waa qol kale. waxaan rabnaa inaan ogaano inta qof oo ku nool qolkan. sariiruhu waa isdul saaran yihiin. sida walaalka ii sheegay Cabdullaahi Maxamed waxa uu yiri waxa ku nool 5 dhalinyaro Soomaaliyeed. daawadayaal waa waqti cimiladu aad u qabow yihiin. waxa uu noo sheegay hiitarada ay isticmaalaan ama kululeysooyinka in ay yihiin bahalaha ay u jeedaan oo cadcad.
daawadayaal meeshan meel loogu talagalay in la dego ma ahayn. Cabdulaahi Maxamed mar aan weydiinay qaabkay u helaan adeega caafimaadka ayaa waxa uu noo sheegay in ay yimaadaan dhakhaatiir u shaqeeya hay'adaha samafalka. sidoo kale waxa uu noo sheegay in dawooyinka iyo caafimaadkaba ay ku helaan si lacag la'aan ah. daawadayaal sidoo kale halkan waxa ku nool hooyooyin iyo caruur, walow ay noo suurtagelin in aan warays la yeelano. runtii dadka halka ku nool ayaa qiyaastii waxa ay gaarayaan 500 ilaa 400 inta u dhaxaysa. dadkaasoo iskugu jira muslim iyo gaalba. daawadayaal waxaan u sii gudubnay dhinaca iyo jikada. halkani waa meel ay ugu talagaleen in ay saartaan adeegyada yaryar sida qaadooyinka, fargeetooyinka iyo wixii la mid ah. halkaa kale aad ujeedaan waa meesha nadaafadda isla markaana weelka lagu dhaqo. daawadayaal halkan kale aad ujeedaan waa weelkii ay isticmaalayeen dadka gaaraya 500 ilaa 400 inta u dhaxaysa. runtii waxaa aad u cajaa'iba dadka aadka u tirada badan waxa ay isticmaalaan weelkaa yar aad ujeedaan. waxaan Cabdulaahi Maxamed weydiiyey qaabkee fursad loogu kala helaa weelka yar iyo dadka sida aadka u badan qaabkee u isticmaalaan, balse qaabkee ayay jikada nafis ugu kala helaan marka ay wax karsanayaan. Cabdulaahi Maxamed waxa uu ugu jawaabay waxaan leenahay hal nidaam iyo hal guddi. sidoo kale waxaa wax lagu kariyaa digsiga weyn aad u jeedaan. Cabdulaahi waxaan kala weydiiyey maadaama ay dadku aad u tiro badan yihiin, digsiga weyn cunnada lagu kariyo ma ku wada filan tahay balse ma wada gaartaa dadka? waxa uu ugu jawaabay haa way gaartaa. sidoo kale isagu waxa uu ku shaqeeyaa koronto iyo gaas. Cabdulaahi waxaan kaloo weydiiyey su'aal kale oo aad u muhiim ahayd. su'aashaas oo ah maadaama ay dadku iskugu jiraan muslim iyo gaalo, qaabkee hal cunno u wada cunaan iyagoo isla markaa ka yimi waddamo kala duwan maadaama ay kala haystaan dhaqano kala duwan? Cabdulaahi waxa uu ugu jawaabay cunnooyinka waxa laga soo iibiyaa hal meel, halkaa meel oo ah dukaamada muslimiinta ah oo carabtu haystaan. sidoo kale cunnooyinko dhan waxaa ku wada qoran kelmadda xalaal. Cabdulaahi sidoo kale wuxuu sharaxaad iiga bixiyey dadku markay cunnada cunayaan ama marka ay rabaan in ay jikada wax ku karsadaan waxa ay leeyihiin nidaam, iyagoo isla markaas saf dheer u soo gelaya qaabkii loo kala horeyn lahaa ama qaabkii qofka qofka ka horeeyo uu wax u samaysan lahaa ama wax u karsan lahaa. daawadayaal runtii waa nolol aad u cajaa'iba. waa dad aad u tiro badan iyo hal jiko isla markaana weelku aad u yaryahay. hadda waxaan joognaa jikadii, dad badanna ma joogaan. runtii waad la yaabisaa mararka qaar markaad aad ugu sii fiirsato. Cabdulaahi sidoo kale wuxuu sharaxaad kooban ka bixiyey dabkan yar iyo digsigan yar oo qofka la taagan yahay, isagoo sheegay qofkii raba inuu shaah samaysto ama qaxwe waxa uu isticmaali karaa digsigan yar, isla markaana qaxwaha iyo shaaha
iyo sonkortuba waxa ay yaalin geeska kale. qofkii raba mar kasta in uu samaysto shaah waa uu isticmaali karaa intuu doono. cabdulaahi maxamed sidoo kale wuxuu sharaxaad naga siin doonaa dhinacyada kale oo jikada iyo qaybaheeda kala duwan. daawadayaal, sida aad u jeedaan, cabdulaahi waxa uu sharaxaad ka bixin doonaa maama Soomaaliyeed oo dadkoo dhan u samaysa quraacda subaxii. maamada Soomaaliyeed ayaa waxa ay dusha saaratay in ay dhammaan dadka halka jooga ay quraac siiso, iyadoo isla markaas subaxa hore u kacda sidii ay dadkoo dhan u gaarsiin lahayd quraacda ay gacanteeda ku samayso. cabdulaahi waxaan weydiiyey, maadaama ay weli halkan cunnadii ay taallo, wakhtiyo gaaro inay go'an miyaa jira oo cunnada la soo doonto, mise qofka mar kasta uu gaajoodo waa uu iman karaa jikada, waxa uu rabana wuu qaadan karaa ama wuu cuni karaa? sidoo kale cabdulaahi waxa iigu jawaabay, cunnadu jikada mar kasta waa iska taallaa, ma lahan wakhti, qofka markuu gaajoodaba wuu iman karaa. daawadayaal, haddaba dadkan ku nool kiniisadda ayaa waxaa loo abaabulay mudaharaad aad u ballaaran. mudaharaadkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururada gacanta ku haya dadkan ku nool kiniisadda. mudaharaadkan ayaa la iskaga soo baxay dhammaan kaamamka qaxootiyada. mudaharaadkan ayaa wuxuu ka duwanaa mudaharaadyadii hore, maadaama ay ka qayb galayeen dad u dhashay waddanka Holland. dadkan ayaa waxa ay iskugu yimaadeen kiniisadda weyn ay ku nool yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliyeed.
bannaanbaxan ayaa waxa uu socday muddo dhan 8 saacadood. runtii waa bannaanbixii u weynaa ee ka dhaca waddanka Holland. dadka waddanka Holland sharci la'aanta ku ah ayaa iskugu yimi halkan. dadka ayaa waxa ay sugayaan dad kale oo u soo socda halkan. halkan waa xudunta weyn ee dadku ku ballansanaayeen si ay markaa hal mar socodka u wada bilaabaan. sidoo kale dadka mudaharaadaya waxaa dhinac socday booliska oo amniga aad u adkeeyay iyagoo isla markaa stop gareeyay ama joojiyay dhammaan isku socodkii gaadiidka magaalada Amsterdam. jawigu aad ayuu u qaboobaa waxaana uu marayay -5. runtii dadku aad ayay u dhaxmoonayeen balse way u adkaysteen muddada 8 saacadood oo lagu guda jiray mudaharaadka. sidoo kale waxaa barbar socday dad aad u tiro badan oo waddanka u dhashay. daawadayaal sidoo kale dadku waxa ay wateen boorar muujinaya dhibaatada haysata. sidoo kale boorarkan ayaa waxaa ka dhex muuqday ninka loogu magacaabo Geerti Wilders ninkaasoo ah nin dadka muslimiinta aad u neceb.
isla markaana waxa uu madax ka yahay xisbi ka mid ah xisbiyada ka dhisan waddanka Netherland. daawadayaal dadkan mudaharaadaya ayaa hadallada ay ku dhawaaqayeen waxaa ka mid ahaa waxaan doonaynaa inaan ku noolaano halkan adduunku waa hal dadku waa hal waxaan doonaynaa nolol waxaan doonaynaa sharci waxaan doonaynaa xuquuq bini'aadamnimo. dadkan waxaa la soo dhigay bannaanka la soo wada dhigay 5 sano 6 sano dad wada joogaan dadkan markaa shucuurtooda waxay dadkan u soo muujinayaan meesha bannaanka la dhigay kaniisaday ku nool yihiin taa waxaa kaga daran dadkii Soomaaliyeed oo markay dawladda istaalaad wax qababa hoosta ka iibsanaysa aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah waddanka Holland. aadan ayaa waddanka Holland waxa uu joogay muddo sanado ah. aadan waxa uu ku nool yahay xeryaha qaxootiyada kuwa weliba dib u celinta. aadan ayaa eedda dusha waxa uu ka saaray jaaliyadaha ka dhisan waddanka Holland. aadan hadalladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan أساس الصومالية ساوي كشيء مركا محان وده وحسك لنا الصومالية أيامها حسابنا سا إن أي معنى هوستا نجا قدتو مردت كعشرة كذب تقول ليش عنو مش كي يوم يملك ربش يعني مر أي ردت كأننا قاعدين لنا وحي الصومالية كل يستعش كتير ماشي كتير إسباروين بماشي كتير وح ليش هذا الغاضة من الصومالية بقى هرمرية أو وحيا كان وحشي وحنا كمان كنا أنا وحقانية ذات كيما لك اللي يسنيا ماشي الصومالية دي بقى الدولة محان بس كأن الصومالية دي بقى أيها مارتي وحكي السبع أو مارتي أيها قبلها الصومالية أيها شاليديه لو ترك الحين وحدتك أيها لي أيها كهي لنا يودتك قدر يقول العقل. sidoo kale daawadayaal waxaan booqday kaam ka mid ah kaamamka ku yaala ama xero ka mid ah xerooyinka ku yaala waddanka Holland. xeradan ayaa waxaa ku nool qaxooti Soomaaliyeed balse waa ay ka duwan tahay xerooyinkii hore aan soo marnay. dadku waxay qaataan lacag waxa ayna ku sugaan sharciyo balse iyaga laftigooda waxa ay sheeganayaan dhibaatooyin. daawadayaal waxa aan la kulmay gabdho Soomaaliyeed oo ku nool xeradan qaxootiga ah iyagoo isla markaa muddo dhowr sano ah ku noolaa waddankan Holland wax sharciyana ku haysan. Xaawa Abaada Kaahin waxa aan weydiiyey ma noo sheegi kartaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa inta aad joogtay waddankan Holland oo ku qabsada. waxa ay ku jawaabtay dhibaatooyinkii iga soo maray waxa waaye aniga oo asasi iskaga nool oo ku jira waxa la yiraahdo banaanka asasi macnaha dadku sida u fahmaan waa xero qaxootinimo anoo ku jira oo qaxootinimo weydiistay aslan oo markii hore qaabileen oo meelaha 4 sano camal ku jiray waxa ay dhigeen banaanka marka ay dhigeen haddana dib ama galiyo oo weydiistay banaanka ay hore ay sii dhigeen banaanka hore markay sii dhigeen dad Soomaaliyeed oo iyaguna sideedoo kale banaanka loo dhigaa banaan bax sameeyeen aan ku biiray dadkii banaan bax sameeyay waxaan dadkii banaan bax sameeyay waxa abaarna ku meeshii bil ku dhawaad camal aan banaan bixi joognay meel banaanka aan seexanaynay qabow iyo baraf iyo yacni dhibaato wax walba lagu soo mareen dabadeed waa boolisaana soo qaaday kaaman mas'uul xareeyay haddana intii aan ku xiriirsanahay ilaa iyo hadda marka waxaan oran lahaa حاول أن كان حلو بنانك معناها مركز إنه ينسي حاجات تفاصيل كسب بنانك وحكوا ده بنانك ودوين كأكون وضعي شارعنا دقيقة استراد كيد هذا اللي يكون ندرلان هدين استراد على استراد أي هذا الموت كل كفر sidoo kale Xaawa Abaada Kaahin ayaa waxa weydiiyay maadaama aan muddo 5 sano ah ku dhibaataysan tahay wadamada Yurub oo barnaamijkeedu uu yahay barnaamij wacyigelin isla markaana aan rabno xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta wadamada Yurub inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaa tala ah maxaa fariina aad gaarsiin lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda tahriibaya ama hadda ku hanweyn inay soo tahriibaan wallahi waxaan ugu gudbinayaa Soomaali hadana waa adagna hadaan Soomaali nahay hadda aniga fiigan hadaan la iga arkay waxa la leeyahay iyada hadda kastoo heshay
dadkana inay joogaan Soomaalidu way adagtay aad bay u adagtay laakiin runtii waxaan u sheegi lahaa inay iska joogaan wadankooda inay iska joogaan hadday dhintaan wadankooda ku dhintaan ani maanta haddaan dhinto cid maxay ahaydey haddaan la igu badan yahay galaaseer baa lay gelinaya waxaan ku jirayaa muddo laakiin haddaan dhulkayga hooyo ku dhinto markaaba waa lay aasay waana la igu ma garatay laakiin waxaan ku wacyigelinayaa dadka Soomaaliyeed oo badaha isku soo darayana waxaan ku wacyigelin lahaa iska jooga walaalayaal dhulkiina anagii waxba ma hayno wajig Amran Cabdi Maxamed waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan wadamada Yurub gaar ahaan wadanka hore Amran mana sheegi kartaa dhibaatooyinka ugu weyn aad kala kulantay 5 sano aad joogtay wadankan hore insha Allah biidhnillah okay bal adoo hal ama laba mid ka taabanay bal maxaa kuugu dhib badnaa aad la kulantay intii aad joogtay qurbaha wallahi waxaa igu dhibnaa mar ah habsi kale oo muddo intee bilood ku jirtay 5 bilood 5 bilood oo wadankan hore maxaa lagu xiray markaa la waxay lagu xiray aniga dawladda ma sheegaysa laakiin faraxaga weynaadana faraxaga weyn ma wadanka la fara ku lahayd may waan gartay marka ma jiraan dadkan banaanka la dhigay iyo dadkan dhibaatooyinka shaarica ku noolaa sida walaasheen xaawo oo kale may dhibaato kale aan kala kulmay Nederland oo jirto 5 sano jooga 5 bilood habsi la geliyay waa la isoo daayay kaamka hadda ku jira la keenay alxamdulillah niimada ilaahay ku jira wax dhib ma qabo laakiin inaan wadankayga ku noqdo ayaalkayga soo arko waa iska rabi lahaa ilaahay sharciga soo qaado sharciga wali ma ilaahay daawadayaal sidoo kale waxaa noo suurta gashay inaan ogaano qolalka ay ku nool yihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin gabdhahan Soomaaliyeed halkan aad u jeedaan waa fadhiga ama waa meesha ay ku cunteeyaan ama ay ku caweeyaan sidoo kale waxa ay degan yihiin qolalkan aadka u yaryar oo 2 mitir runtii waa ciriiri sidoo kale halkan waa halka ay u isticmaalaan jikada waxa u yaala agabkii loogu talagalay jikada kaliya waxaa ka maqan waa sharci daawadayaal sidoo kale waxa aan la kulannay aabba Soomaaliyeed oo aad u dhibaataysan isla markaana aan socon karin balse isticmaala gaadiidka curyaanada aabbahan ayaa muddo 6 sano ah waxa uu ku noolaa wadanka Holland balse aabbahan dhibka ugu weyn oo haysta ayaa waxa ah cid ehela ama cid qaraabo ah oo u joogta wadanka Holland ma jirto aabbahan ayaa keligii ku nool kaam ka mid ah kaamamka wadanka Holland waxa ay ku nool yihiin guri loogu talagalay curyaanada waxa uu la nool yahay dad ajaaniba oo curyaana ah weelkan waa weelka uu isticmaalo oo wax ku karsado jikadanna aad u jeedaan waa jikada uu isticmaalo aabbahan daawadayaal weli barnaamijkan ayaan dhexda kaga jirnaa waxa aan la kulannay Cornel Soomaaliyeed waxaan weydiin doonaa magaciisa iyo su'aalo ku saabsan noloshiisa marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa Cornel magacaagu saddexan محمد عمر معلم محمد عمر معلم intaanan su'aalaha u sii guda galin waxaan rabaa horta inta sano ah wadankan joogtay inaad noo sheegtid waxaan soo galay 26 مارس 1926 16 مارس 2006 لما 26 مارس 2006
26 maars 2006 waxaa kasoo wareegtaan u malaynayaa muddo dhan 7 sano. Cornele ma noo sheegi kartaa intaas sano 7 sano aad joogtay waddankan Holland dhibaatooyinka ugu waaweyn aad la kulantay? waddankan waxaan soo galay anigoo fiyow oo meel kasta aadayo meel kasta ka shaqaysanayo waa ku jiraday haddana aadaan u liitaa hadda keliyahayga ma shaqeeyana laygu yiri waxaan qabaa waxaa igu dhaca layiri alta barsuura igu dhacay sokoraan qabaa intuu tacbaanna waa waan gartay runtii waa ujeedaan Cornelka waxa uu joogaa muddo 7 sano ah sida uu noo sheegay wixii inuu caafimaad qaba ayaan waddankan imi oo runtii aad u soconaya haddana ma socon karo oo runtii waa ujeedaan waxa uu leeyahay keliyihii ima shaqeynayaan sidoo kale sidoo kale waxa uu sheegayaa shalaydan in la soo qoray oo qalliin ka soo baxay xagga indhaha ah. Cornele waddankii Soomaaliya markaan dhowr su'aalood ka weydiiyo xagee ka degnayd? waxaan ka deganaa Madiina ka deganaa magaalada Muqdisho ee degmada Madiina ka deganaa. waan gartay waxa ahayd Corneladii dawladii Maxamed Siyaad Barre. waxaan joogay hoggaanka beeraha ayaan joogay. hoggaanka beeraha laga bilaabo xidigla ilaa Cornel waxaan joogay beeraha. okay dawladihii dambe wax shaqo ama ka qabatay? wax shaqo kama qaban. waan gartay maxaa marka hadda maadaama aad muddo 7 sano waddankan joogtay oo runtii aadan sharcina ku haysan aad ku nooshahay kaan qaxootiya maxaa hadda isleedahay ma isleedahay waddankaaga hooyo dib iskaga noqon? wallaahi waa damacsan laakiin mar walba naagta oo abukaata ii ah ayaa waxay leedahay yani isugu wax yar wax soo socday. waan gartay rajadaasaan ku noolahay. waan ujeedaa waxaad ku nooshahay qolka yar oo ilaa 2 mitir ma jirtaa cid ku caawisa ama cid kula degan ama cid wax kuu qabata? maya wax family ma ku joogaan waddankan? maya wax family kuma joogaan. wiilkii ayaa joogi jiray wuxuu London deganaa jiray isaga inta ka markii hore waa dhintay isaga baa Allah yarxamo hadda kaliya jooga. waan gartay looyaradu wax raja ama ka muujisay arrinkaaga? waxay tiri maartay bishaan hadda aan ku jirno ma abriil ayaan rabaa maartay waxa inaan ku weydiiyo sharci ku weydiiyo ayaan rabaa saas u tiri laakiin ilaaha ugu moogaaniga. waan gartay marka maxay kugu haystaan waxyaabaha ay kugu haystaan pointiga kugu haystaan ee negative-ka ku siiyeen oo sharci kugu jiraan? yani ciidamada militariga Soomaaliya ayaa macdama intasaneed dadkii laayaa ku jirta. dadkii laayaa ku jirta. ana beerahan joogi jiray weliga ma arkin meel wax lagu lahayn. okay Cornelku waxa uu yiri waxa laygu tirinayaa dadkii dhibaatada ka geystay Soomaaliya balse anigu waxaan joogi jiray beeraha oo weligayba cid maba arag baa wax dhibaato ah kama sameyn waddankii. Cornel su'aasha u dambeysay oo aan rabay inaan ku weydiiyo dawladda Soomaaliyeed ayaa dhalatay oo runtii rajo aad u weyn laga muujinayo. dawladda Soomaaliyeed runtii waxa moodaa sidii dawladihii hore kale inay ka cadcadahay oo aad uga cadcadahay. dawladda Soomaaliyeed maadaama ay tahay dawlad dadkii Corneladii hore meel ku haysay generaaladii hore xurin u sameysay oo runtii xiriir fiican ay leeyihiin san telefishinada ka aragno ma jirta wax xiriir ay kula soo sameeyeen haddii tahay dhinac inay ku baahdaan oo dhinac wacyigelin ay tahay wax xiriir ay kula sameeyeen ma jirto? marka maxaad fariino u gudbin lahayd dawladda Soomaaliyeed balse maxaa ka codsanaysaa maadaama telefishin caalami ah yani in ay maartay dawladdeena Soomaaliya wafdi inay u soo dirto halkan Holland oo ay nagala hadlaan maartay waxa ay iyagu waxay dawladdeena wax walba waa haysataa waxba kama maqna saadaraado idin ciidaheena. waan gartay waxna ma jiro habeenii maalin waxa ka socda qaraxa ka socda. marka maxaad fariino u gudbin lahayd madaxda Soomaaliya? waxaan ku codsanaa inay wax noo qabtaan waxaad ka codsanaysaa inay yimaadaan waddanka Holland oo codsigaagu sidaan u arko micnaha aan ka fasirtay hadalkaaga inay dawladda Holland iskaashi xiriir la sameeyaan ay u cadeeyaan micnaha Muqdisho inaan hadda lagu laaban karin maadaama weli ay joogaan ciidamadii AMISOM oo loo yaqaano ciidamada midowga Afrika. waxa tahay abad Soomaaliyeed runtii dadkuna waxa laga yaabaa barnaamijkaygu maadaama uu yahay barnaamij wacyigelin
dadkana waxaa laga yaabaa maadaama adiga ay ku arkaan in ay ku mithaal qaadan karaan hadalkaaga maxaad kula talin lahayd dadkan haddeer soo gelaya saxaraha oo usoo tahriibaya wadamada yurub maadaama aan wadankan joogtay muddo 7 sano isla markaana aad ku dhibaataysan tahay maxaad ku wacyigelin lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama uu barnaamijkeedu yahay barnaamij wacyigelin wallahi horta wixii hadda ka dambeeyo mar baad dawlad noo dhalatay wixii hadda ka dambeeyo inay dalkooda aysan ka soo baxin ay ku aaminaan dalkooda joogaan wadan ajnabi aysan imaan waa aabba Soomaaliyeed oo runtii aad u dhibaataysan isla markaana aan haysan wax caawiya ama wax ehela dhalinyarada Soomaaliyeed oo waalidkood keenaya wadamada qurbaha isla markaana kaga tagaya runtii waxa ay shaqaysanayaan uquubul waalideyn aabbahan waa aabe u baahan gargaar degdega waa aabe u baahan caawinaad waa aabe u baahan in la caawiyo isla markaana laga caawiyo dhinac kasta aabbahan waxaa ka dareeminay markii aan waraysiga ka qaadinay in uu aad iyo aad u murugoonayo isla markaana uu dareemayo inuu cidlo joogo runtii mararka qaar wuu ilmeynayay ilmaa ka imanaysay sidaa u jeedaan aabbahan waa aabe dareenkaagu ku siinayn in aad xaaladdan oo kale kula kulantid daawadayaal dadka Yurub ku dhibaatoonaya ayaa maalinba maalinta ka sii dambaysa sii badanaya dhibaatadu dhalinyarada kaliya ma haysato dhinac kasta hadday caruur tahay hadday hooyo tahay iyo hadday waalid tahayba isku soo wada duubo barnaamijkayga ayaan waxa ugu magac darnay tahriib iyo talo xumo dad ayaa waxa u malaynayaan marka ay Yurub yimaadaan in ay soo galeen jannadii adduunyada balse xaqiiqda dhabta ah waa tan aad indhihiina ku aragtaan daawadayaal weli barnaamijkayga ayaan dhexda kaga jirnaa sidoo kale waxa aan la kulmay Sheekh Cabdisalaan oo ka ah Iimaan Masjid magaalo magaceeda la yiraahdo Heerenveen oo ku taala gobolka Friesland waa wadanka Holland sheekha ayaa waxa uu nooga warbixinayaa waqtigii uu joogay wadankan iyo xaaladihii uu kala kulmay magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdisalaam Faarax Umar Sheekh Cabdisalaan wadankan Holland intee sano ayaa ku nooshahay waxaan ku noolahay wadankan Holland 19 sano 19 sano oo waqti aad u dheer sheekh waxaan rabnaa bal inaan ku weydiino dhibaatooyinka ugu waaweyn ah kala kulantay intii aad joogtay wadankan Yurub maadaama uu yahay wadan aan haysan diinta islaamka oo isla markaana sharciyo kala lagu dhaqo marka bal dhibaatooyinka ugu waaweyn ah kala kulantay wadankan waxa ugu horeeya horta marka hore wadanka markii la yimaado jawiga aan wadankeenu u ahaa oo ahaa wadan kul ma aha wadan qabow wadan waqtina waa winter waa qabow waqtiga kalena waa summer waa kulul yahay jawiga waan la qabsan weyne marka hore marka dambana waan la qabsanay waxyaabaha kale oo jira waxa weeye luqadiyada aqoonin luqad wadan walba wuxuu leeyahay luqad buu leeyahay luqad kale lagu hadlayaa yaqaan waxa kale oo jira sidii wadankeena uu muslim u yahay oo dadku ay muslimiin u yihiin dadkan muslimiin way degan yihiin laakiin masaajidada way ku yaraayeen waagi hore hadda in kastoo masaajidadu ay bateen marka mararka qaarkood waqtiga ramadaanka oo kale ma dareemaysid inuu ramadaan u yahay ilaa markii aad masaajidka timaada dareemaysaa inta kale waxa waaye dadkii meel way furan yihiin wadankeenu saas muusan ahayn waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo maadaama sheekh masaajid aad tahay isla markaana sunniyuhu kaa muuqdo wax dhibaatooyin oo shakhsi ahaantaada aad kala kulantay ma jiraan wallahi wax aan kala kulmay intaan joogo muslimiinta ma arkay ma la kulmay okay sheekh waxa barnaamijka waa barnaamij wacyigelin isla markaana rabno inaan dadka gaarsiino dhammaan caalamka meel kasta ay joogaan Soomaalida maadaama ay dadkeeni aad u soo tahriibayaan isla markaana badihii ku dhimanayaan saxarihii ku dhimanayaan oo runtii dhalinyaro xataa jaamacada dhameysay maanta ay u soo tahriibayaan wadamada Yurub maxaad kula talin lahayd fariina u gaarsiin lahayd aad oran lahayd wadamadan waxaas ku fiican yahay waxaas ku xun yahay
maxaa tala aad siin lahayd waxaa taa waagii aan markaan anigu aan ka soo cararayna waddankeena dhibaataan ugu soo cararnay oo dagaalba u ahaa nabadgelyo xumo laakiin ilaa hadda nabadgelyadii sidii hore ma aha way wanaagsan tahay waddankii marka dadka waagii horena way sahlaneyd sidii waddankii loogu soo tago oo loo yimaado waddamada Yurub laakiin hadda way adkaatay dadkii naftooda ay dilayaan oo tahriib bay soo marayaan dhibaatooyin badan soo marayaan waddamo kale oo aynan weligood arkin bay soo marayaan kuwaas oo ay kala kulmayaan dhibaatooyin badan intayna Yurub soo gaarinba waddamadii kale ay soo marayeen ay dhibaatooyin weyn ay kala kulmayaan marka waxaan leeyahay qof walba adduunyada ku nool irsiqiisu wuu qoran yahay meel walba uu joogo marka waxaan leeyahay walaalahaygi iyo caruurtaydaba oo maxay ahayd Soomaalida ah oo soo tahriibay oo nafsadooda oo mooday inay Yurub ay ka helayaan wax alla waxay ay rabaan ka helayaan ma malaynayo Yurub iyaga waxa laga helayaa dad dhibaato aad u qabo oo aan waxba haysan marka waxaan leeyahay inay soo haligino qofkii helayo fiisa helayo si wanaagsan u soo baxayo waddanka Yurub imaanayo way macquul bay noqon kartaa laakiin dadka soo tahriibayo oo saxaraha soo marayo oo biyaha soo marayo oo dooman aan motorkooda macnaa xooganayn soo raacay oo qaarkood biyaha ku dhimanayo waxaan aan dhihi lahay aan ku wacyigelin lahay inay waddamadooda iska joogaan meeshooda iska joogaan waalidkooda la joogaan xaasas haddii leeyahay xaasaskoodii carruurtooda la joogaan ayaan kula talin lahay sheekh aad iyo aad baa umahadsan tahay barnaamijkaaga wacyigelinta iyo waqtiga aadna siisay oo qaaliga ah aad iyo aad baa umahadsan tahay waa adaa mudanaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال وحكوا لي بنع فدية عبد القادر وأهصنا ضد مدم جوجي وضمد قربها إسلام مركانا عن رمينا ورئيسير ليالنا ودور سؤال لمدين عبد القادر مدة أنت سنة يا ودنك جوجتها أنا وحن شوي مقعي قرتوا عبد القادر عبد الله وحن هل كان دقنا هي مدة لواتن سنة مدة لواتن سنة وأنت ودنك بربر سنة وأنت ودنك بربر سنة وأنا قرتي من هالشيء كرت عبد القادر وأنتي من دلوقتي سنة قاعد بوتر بدنته من هالشيء كرت بالدباتوين كوا وينا أو لبعضن كسرنا أنتي أدخل بحكم نوري ذا كله كلامتي لبعضن كسرنا وحيودرنا عن كل ما حكم ده المركان هل كان إيمانه وحان وتي وح لسعودي عرور عاد ويرير دأذوه وخار كان وين أفر سنة إلى سدح يبربوجري كو كلنا كثير سدح سنة هل سنة يبردواتوين كوين الله كل محكمة ده حق الدين يعني دواتو يقدرنا عرورتي مسجد ملهن مال معنا ومال القرآن لو برمجرين مالد بيأد عاونة يسامرك مجرين سكول كي آذان ومدرسة وودن قالت دروس يسوق هذانا وودن قالت مركا دواتوين كسا يقدرنا أن كلا كل ما كنتي شخصي أنت وأنا قلت برنامجكي هو برنامج وعي قلنا إسلام مركانا هو برنامج أعرفنا إن ضدكي جالسين دباتوين كي يلا وضمضان يوروب مركا ما دام ووضن كم كجرو وضمض آت كجعلين الصومالي عشان توضنا وجوه رئيسا محاد وكوعي قلنا لهيد محاد فرينو جالسين لهيد محاد لو وجود بين لهيد ما دام التلفزيون كي تلفزيون عالمية ولا قاعد ضاوني ملك العالم والله رنتي وحافي عن ورتا ضدك إلهي ضدك اللي تلصارتان wadamadan halkan la imaanaya waxa dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyinkaas waxa kamid ah qofka ma helayo muxuu ahaa diinta waxyaalaha tasjiilaadka uu ka heli karo wadamada uu Soomaaliya kala maanta dhibaato kama jirto xagga diineed laakiin halkan markaad timaado dhibaatooyin badan baad la kulmaysaa oo macnaha waxyaalo badan baa ku sahlan inaad diinta waxaan aragnay dad badan oo diinta ta ka baxay shabaab ah oo markay soo halka imaanayeen diinta haystay waxaan aragnay dad caruurtii laga kaxaystay oo waxaan aragnay nin iyo naagtiisa laba meel la kala dejiyay marka meeshan ma aha meel sidaad moodaysaan janno ma aha waa meel dhibaatooyin iyo dhib qofka hadduusan iimaankiisa haysan karin diintiisa haysan karin caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ay gacmaha isqabsan karin way ku adag tahay inay ka baxaan dhibaatadan oo kale marka ma ahan meeshan dad adiga waxaad moodaysaa inaad ka faa'iidayso waa laga faa'iidaya meeshan ma aha in diinta laga saaro la isku dayaa taa waayna dhacday in dad badan oo diinta laga saaro waxaa kale kula talin lahaa waddanka Soomaaliya haddeer iftiin baa ka baxay
waxaan u jeednaa waxyaalo badan oo annaga laftigeena moraalna gelinaya inaan waddanka hataa ku noqono marka waxaan kula talin lahaa soomaaliya wax kastaad ka helaysaan risqigana ilaah baa baxsha soomaaliya gudaheeda hadduu qofku waxbarasho rabo hadduu shaqo rabo wuu ka heli karaa marka ilaahay ha la tala saarto oo ilaahay ha la baryo ilaahay ha loo noqdo waddankiina inaad iimaansataan baan idinkula talin lahaa runtii maxamed axmed macalin waa nin dhalinyaro ah oo muddo 5 sano ah ku nool waddanka Holland isagoo isla markaa nasiibkiisa markii uu soo galayba uu sharcigii hore ka helay waxa uu degan yahay meel tuulo ah oo cidlo ah sidoo kale maxamed axmed macalin waxa uu ku jiraa dhalinyarada soo tahriibtay oo soo martay dhinaca badda iyo saxaraha maxamed axmed macalin waxa uu la soo kulmay dhibaatooyin aad u tiro badan waxa uu nagala qayb qaadan doonaa barnaamijkayga wacyigelinta isagoo isla markaas dhiiban doona fikirkiisa iyo talooyinkiisa iyo waxa uu ka aaminsan yahay wadamadan Yurub sano ama 4 sano inta jooga oo isugu yaal hadaad aragto aad isleedahay Soomaaliya inuu yahay shaki ka galay lahjada un baan ka dhaxayso maahan cibaado diinana ka muuqan akhlaaq kale ka muuqan marka qaflay wada galeen dadka ilaa indhafo ilaahay badbaadsho maahan marka waxaan dhigaa anigu dhalinyarada soo tahriibaysa ilaahay ka baqa wadankan in loo noqdo waa muqadas anigu kulay shakhsi ahaantayda inaan u noqonayo taasu muran kama taagno ama ha dhawaato ama ha dheeraato daawadayaal weli barnaamijkayga ayaan dhexda kaga jirnaa waxa aan la kulmay Axmed Haraveyn oo muddo 15 sano ah ku nool waddanka Holland Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ka barata waddanka Holland waxbarashadiisu waxay gaarsiisan tahay ilaa heer jaamacadeed isagoo oo barta qaybta ganacsiga ama dhaqaalaha Axmed waxa uu ka warbixin doonaa fursadan qaaliga ah sidii uu ku helay iyo waddankan Yurub waxa yaala haddaba hadaladiisi waxaa ka mid ahaa wallahi aniga luqadda Netherlandska oo luqad iska adag aniga nasiibkayga waxay ahayd waxay mid xagan unoo 10 jira marka dee qof markuu yar yahay ugu fududahay luqadda marka taawaan u helay inta badan luqadda igu fududneed axmed adoo noo soo koobaya xoogaha bal qaabkii aad waxbarashada meesha ka bilowday ilaa heerka jaamacadda sidaa u gaartay marka waxaan ku bilaabay horta kaamka iskool baan ku bilaabay waxay igu saacidayeen luqadda marka horaan u qabtay luqadiina marka waxaa lii diray iskool kaloo Netherland marka inta ugu horeysa uu igu adkeed laakiin alxamdulillah waa la qabsaday markiina waxaa lii diray secondary-ga xaggaaba marka waan waday iskoolkii markaaba dhinacaana ka doortay meeshaan doonayana waxay ahayd businesska okay ganacsiga waan gartay hadda waxaad barataa oo isku diyaarisaa waa ganacsigii ma jiraan dhibaatooyin intaas waqtiga aad waxbarashada ku jirtay dhibaatooyin kusoo wajahay shakhsi ahaantaada may wallahi waxay la tahay sahal marka qofkan waxay ku xiran tahay niyadiisa hadduu doonayo wuu helayaa daawadayaal sidoo kale waxa aan la kulmay Meecad Maxamuud Ciise Meecad waxa uu ku hamin weynaa markii uu Yurub soo galayay in uu waxbarasho ka bilaabo ilaa heer jaamacadeeda balse taasi ma aysan dhicin way ku adkaatay Meecad oo ka warbixinaya markii uu Yurub soo galay waxa ku dhacay niyad jab aad u weyn Meecad hadaladiisa waxa ka mid ahaa jaamacad waxaan isla markaan dalkan imi tacliintada aad ayaad u horumarin doontaa kaba soo qaad waxa anigu waxaan baa sideedaba dugsigaygii sare waxaan ku soo qaatay Soomaaliya high school-kaygii kalena waxaan ku soo qaatay dalka Uganda magaalada Kampala waxaan markaan halka imaan aad ugu haminayay in aan waxbarashadeeda jaamacadeed hore u mariyo waa run dal way adkaatay taasi waxa ka hosgareeyay inay adkaato waxyaalo badan sida haddii aad tahay arday waa mid koowaad marka dal timaado horta luqad Ingiriis aan laga hadlin waa inaad luqadiisa barato ilaahay taa waa ii sahlay sidii loo baahnay heerkii jaamacadda luqadii looga baahnaa muddo 2 sano ah waan ku gaaray levelka 3 ayaan ku soo qaatay levelka 3 luqadda haddaad soo qaadato waxaad samayn kartaa jaamacadda
ama waxay u yaqaaniin college halkan oo HBO ay u yaqaaniin oo ayagu ay ku qaataan bachelor sida caadiga ama ay yiraahdaan jaamacad laakiin waxay yiraahdaan HBO waa college laakiin haddii aad luqadaada ay kugu filan tahay 3 aad haysato ilaa 3 iyo bar waad bilaabi kartaa okay taasi wal dadaal badan ay u baahan tahay waan ku dadaalay luqadii waxa caqabada labaad ay qabatay waxa xagga dhaqaalaha xagga dhaqaalaha aad ayay u adagtahay wax lagu siinayaa lacag aad u yar €570 ah waxa lagu leeyahay waa inaad iska bixisaa guriga kiradiisii caafimaadkii waa inaad bixisaa waa inaad markaas bixisaa lacagtii lees khaldo waxay yiraahdaan ama lacagtii aad ku baranaysa sanadkii waa inaad maanta aad bixisaa bil kasta aad bixisaa gaaris lacag aad u yar ayaa lagu siinayaa والعك شنو قاطع خاص واحد هذه خاص كوا هذه أطلع أوكي كم نلاش هذا كم تبرك كذي وحبر شغلي ما كان واحد مو خص بنانا سئنا قاطته سئ هذا الوطن كدين هذا الوجه قلين العقل ويلن إن قاطع العقل بقى ولا بقوله يرى هذه ريبة أنا سيدنا أبن هيدين تينو وحي ناشف تي ولا سومالي بين ما هذا ينو متقن وضع نقنا دين تينو متقن ريبة أنت كتير كم تسوي بيكلو ما كان واحد يسوي رجلي سئنا أنا جو isku filan xaq luqadeedii xaq tacliineedba inaan ka haro inaan sameyn waayo waxbarashadeedii okay daawadayaal barnaamijkaygaan ku eegnay dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Holland gaar ahaan qaxootiga Soomaaliyeed waxaan ku soo gabagabaynaynaa intaas daawadayaal barnaamijkaygu wuxuu ahaan doonaa barnaamij taxana ah annagoo tagi doona dhowr wadan oo kamid ah wadamada Yurub ilaahay hadduu nafta noo daayo waxaa mahad aan la soo koobi karin iska leh ilaahay weynaa oo waaxidka ahaa oo noo suurtageliyay barnaamijkan sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa farsamayaqaanka Cabdullaahi Xaashi Qarandoon sidoo kale waxaan isna aad ugu mahad celinayaa kaamirada quruxda badan wiilka duubay waa Cabdiqani Weheliye daawadayaal barnaamijkan barnaamij lamid ah intaan dib ugu kulmi doono waa anigoo ah Suule Saciid Xamdulle salaamullaahi عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.